yaala sanadka 2023 saameyn oo laga soo kabsan karin oo hadda kor waxa jira gabar macna oo xiriir waxa la sameeyay dhaxay balse inkastoo xiriirkeena oo naqday mid oo macnaha oo broken oo meel xiriirkii jabay oo dhumay laakiin saameyn aad u weyn macna xeer waxa gaarnaa xiriirkeena ilaa iyo 5 sano abaf oo wada socday oo heer guur wada gaarno balse aslee 2024 ina ya xaro iska walnada ka baxay insha Allah waxa ka weynahay ina jaamacad dhameeyo ina baxo oo dhoofo ina wax badan sameeyo laakiin guur qorshe ma jiro guurku ma jiro qorshaha waxaan wanaagsan asxaabtayda ku xiran YouTube-kayga Marayladan official ee sidoo kale page-kayga galabta waxa inay wadaa waxyaabihi soo gudbi jiray wax ka duwan waxa la gali doonaa sanad cusub 2024 waxaana wax yar ka bacdi aan ka bixi doonaa ama maalmo qura ay nooga harsan yihiin sanadka 2023 dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ama bulshada hadii ay raado qaybaheeda kala duwan isla markaana ku sugan halkaan oo beerta nabadda ayaan wax ka weydiin doonaa sanadkii 2023 bariyaha inooga dhiman yihiin waxyaabaha ay ku xasuusan karaan saameynta uu ku reebay iyo 2024 oo foodo inagu soo haysa waxyaabaha markaas ay ka rajeynayaan iyo qorshayaashooda ugu wanaagsan hadii Ilaahay ku simo nala socda muuqaalkeena haduu in soo gaaro subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta waa dhagkiina hadii aad nagu cusub tahay ama aad tahay dhalinyarada hore noola joogteen ama qofka dadkii hore noola joogana waxaan ku leenahay soo dhawo page-kiina waa YouTube-kiina gabadhuna waa gabadhiina hadaas loo sax waa horta aan saameyn horto oo yaala sanadka 2023 saameyn oo laga soo kabsan karin oo hadda kor waxa jira gabar macna oo xiriir waxa la sameeyay dhaxay balse inkastoo xiriirkeena oo naqday mid oo macnaha oo broken oo meel xiriirkii jabay oo dhumay laakiin saameyn aad u weyn macnaha xeer waxa gaarnaa xiriirkeena ilaa iyo 5 sano abaf oo wada socday oo heer guur wada gaarno balse xiriirkeena meesha ku dhamaa Soomaaliya Kamaal waa ka xunay boowe su'aalaha qaar markii qofka la weydiinayo waxyaabo qalbi taabada jiro Kamaal oo xiriirkaas maxaa burburiyay ma dhankaagu ka imaaday khilaafka mise dhanka labada dhinac dhankeyga ma dhihi kare dhankeeda ma dhihi kare laakiin waxyaalo oo xawayr waxa jiro waxa la misunderstand oo isfaham daro oo labada dhinac ka imaad ilaa labada qof binaadamka markay xiriir wala sameeyaan waa fahmi kartaa saddex iyo waxa la jiro saasoo min xiriirkeen min oo Kamaal oo marka sanadkee ahaa sanadka guurka ku heshiisay هذا اللبض كلها تاني أفرت لا شنت نجورس توين جعلها لكن هذا محول بيبرين خلاص marka loo kulaatay afraad galowna Kamaal ahaan maadaama sanadkaas iyo sanadii koreeyay ay yihiin kuwa saameyn xun kugu leh waa dareemi karaa qof intaas oo sano ah jacayl misana jacaylkeedii si fudud ah ku weysay qofku wuxuu dareemi karo marka Kamaal oo maadaama ay galayna 2024 qorshahaaga ugu weyn maxaa weeye inaad ka soo kabsatid mise jacayl halkaas isaga ilowda horta qorshayga ugu weyn alxamdulillah hadii macnaha horta labada qof hadii isfaam waay in la kala tago mar waliba way banaanta dhibaatna ma laha inkastoo qofkaan hor xiriir naga dhaxay igu adag xiriirkeeda aan iloobi karin laakiin inaan ka soo kabsado waa arjina si fiican markii laga soo tago jacaylka iyo adiga ka burburay iyo dhibaatada markaas ku soo gaartay Kamaal dad waxa jira jacaylka aan aaminsanayn adigana 5 sano ayaa xiriir lahayd dad waxa jira inta badan dadka ku dhaha jacaylka in sanadaha badan la wado ma sii waaro ma la isdii karaa hadalkooda hormoodi ana ahaanteeda maya macnaha sababtoo ah macnaha qofka macnaha kuma xirno 5 sano 6 sano laakiin inkastoo fiican tahay labada qof marka xiriir ka dhaxay 2 sano 3 sano wax ka dambeeyay in is guursadaan laakiin adi hadaa awood macnaha ilbirqsas waa guursan kartaa laakiin xawayar jeeb xanuun iska jirto iska fahmi kartaa maano aniga dad dhalinyaro iska nahay dad wax iska barnaanahay ay mar guur in lagu dadaba laga fiican Soomaali Kamaal marka fariintaada ugu dambeeysa hadii xiriirkaaga noqon lahayd iyo hadii sanadka cusub noqon lahayd maxaa tahay xiriirkii ugu dambeeyay horta ana aanteeda xiriirkii ugu dambeeyay wax la horta jecel horta inaan meel dhigo laakiin hadafadii kale inaan ka mir dhaliyo cusub 2024 maalmaha nooga dhiman waxa ka sii bixeena 2023 faaduma ahaan 2023 maxaa xasuus kugu reebay waxyaabihi kugu soo biiray noloshaada hadii farxad noqon lahayd kadib si kala duwan noqon lahayd naga sheekay wallahi waa ku faraxsanahay 2023 wixii soo maray tan kale waxa dhimay iskuul jaamacada hadda
galay waa ku faraxsanahay alxamdulillaah haddana hooyaday igu sii timid oo iga maqneed 2024 waxaan rajeynayaa inaan dhoofo insha Allah ilaa hadda waa ku rajaweynahay waana xareystay inuu ii soo baxaa rajeynaa lottery ما شاء الله نصيب وعنا كلنا هاي مركا لو كنا تيسد حسوس كلو قار أو كقولها يا مجران ها wax badan waa jiraan laakiin qaar waa qarsoodi ma la sheegi karo qaarka kalena waa kana ka baxay iskuul aad u faraxsanahay wiligii aan jeclaa inaan dhameeyo waana dhameeyay waxyaabo badan jira ma la soo koobi karo waya marka 2024 oo mar dhow u dabaaldegi rabno waxyaabaha ugu weyn ee noloshaada ahamiga ka leedahay waxaa ka weynahay inaan jaamacad dhameeyo inaan baxo oo dhoofo inaan wax badan sameeyo laakiin guur qorsheey ma jiro guurku ma jiro qorshaha laakiin faadmo dadku waxay dhahayaan iskaabalnimo ka baxeena mar rabno adin maxaa laakiin guur may ani inaan dhoofo wax badan abdeedyada xagga ka jira inaan soo arkaa rabaa inaan ciyo may faarax mu degdegay waayay hada dhooftid faadmo gabadha quruxda badan ma sha Allah haday wadan ka tagto maxay wadanka u soo qaban doontaa wadankaaga hooyo ma xiis doontaa waa soo laabaha waxaa rabaa abdeedyada xad ka jiro inaan soo arko oo inta uu soo laabto kadib inta ka sameeyo business furto waxa jaamacad ku dhigo hooy inta ku furto ina xaq ku furto maraw way faadmo dhalinyarada ku daawanaysa ayagana oo adiga camal maxaa leeyahay fariin maxaa u diray waxaa leeyahay guurka ku degdegina qorshiina wax badan ka horeeyo ina 2024 wax badan aad sameysataan oo business aad furataan oo wax badan aad sameysataan 2024 waatan aad soo Soomaaliyeed maxay dhadalay gabadh inta yartay ha guursato may qalad waa lagu degdego أنا ما استفاد سودو أباي سودو ولا هذا مقعد بلابس هذا أباي مقعد يحيى حسن يحيى قلوب يحيى سودو كسودو بيت كيجا مريم لدنا يوتيوب كيجا سؤال على اللي يرد ويدينا أنكو يدينا أو لحريرتا سنة عصبة هذا الأمان ويا لبكون لبعتني ستة وحنا قلنا لبكون لبعتني أفر بل يحيى أهان مجرى سنة كي تجي وحسامين وقولي والله سندكي oo tagay oo 2003 waxa isleeyahay waa sanad aad u qurux badan oo ahaa inkastoo hadda ay seen jirin waxyaalo oo si gaar ay taabanay laakiin sanadkii hore waxaan leeyahay waxa ku xasuustaa inuu ahaa sanadooda ka dibna sababtoo ah sanadkii hore waxbarashada soo dhameeyay waxaan jeclaa sanadkan soo socdana sanadkiis fiican inuu noqdo arjana waayahay waxaan galeynaa 2024 waxaa nooga xiga wax ka yar 7 maalmood haddaysan ka yareenbo waxaan gali rabnaa 2024 oo maalmo qura ay naga xigsan tahay bal ka waran 2024 qorshayaashaada hadii Ilaahay ku gaarsiiyo waxyaabaha ugu weyn ee isleedahay wallahi qorshaygu waxa isleeyahay 2024 inaan yaxaro iskaabalnada ka baxo insha Allah iskaabalnada ka baxo jeer insha Allah qorshe aad u fiican waa inkastoo yani waxbarashada soo dhameeyay wax yaar wuxuu kaliya wuxuu inaa guurso insha Allah insha Allah waaye iskaabalnimada bal ka waran maadaama 2023 sanadii ka horreeyay ku soo jirtay tan ama salaabirti loo taafar وما صدق واحد ليس كابلوده حضر لنا يعني اسكابلوده شيء كلي يعني اصلنا هاي او قد كرسان يعني ليرنمده sababtoo khumar lariyahay yani iskaabulooda siiyay kuma jirto waxa rajaa inay maxal ina goor fiican helo insha Allah ma sha Allah halkan xaqsanaad maashida mustaqbal inta halkan wa salaamana anaga على قلت 24 ان شاء الله isdiyaar garay insha Allah markii laga soo tago guurkaasi sanadka hadda 2024 inta badan dhalinyarada marka u fiirisid waa qorshahooda ugu badan waxay soo qorayeen inay tahriibna rabnaa weli tahriib ku soo dhacay والله تهريبها وصلحها وانا جعل تهريب وجع لكن وحسليها لكن وحسليها حلقان حلقه ودنك اغتي كرمان because waxbarashadii waa dhamay waxa rajaa inaan shaqeeyla rajaynaa tariiq qorshay ku jiro dhalinyarada maxaa fariin u diray marka waxa la tariiq ay joojiyaan oo wadankooda ay joogan ayaan jeclaa insha Allah alxamdulillah wax marwo iguma lahayn farxada ku soo dhameystay caafimaad taama insha Allah taala ilaahay doodmo ka soo socdana sidoo kale mid ka si qurux badan rajeynaa